وليد بالمرة مو شاطر، تعرفوا ليش عالصوم بالمرة مو شاطر، قولكم ليش قولي ليش. دايما بلعب بالألعاب وبيترك الغرفة فوضى. dantaydan daryeelaya dokhayga aniga ogo farxad baan ku diyaarinaya. intaana muuqaalka bilaabin ka hor daawadaha sharafta leh waxaa idinka codsan lahaa muuqaalka like inaad saartaan, waa free, wax lacaga ma aha. sidoo kale daawadayaal subscribe saara halabuur soomaali calaamada yaroo gudoon dhagsi. assalaamu calaykum, magacaygu waa Sumayo, waxaan kasoo jeedaa Indiya. 12 sano ka hor sheeka igu dhacday, waxaana rabay channelkaada halabuur inaan usoo gudbiyo. sidoo kale aabahay hadda waa retired, macnaha shaqada uu ka fadhiistay waana askari. sidoo kale gurigan ku nooleen wuxuu ahaa guri iska qaab daran, waayo meesha waxaa ka dhoweed xarun military oo askarta Britishka wax ku baranayeen, tababar aan iraahdo. saasay tahay waa inaad ku qanacdaa meesha ku nooshahay, waayo aabahay wuxuu ahaa macangag maandhoc dhalay oo dhib badan. aniga hooyaday badanaa waxaa dareemi jirnay gurigan inay wax ka qaldan yihiin, sababtoo ah waxyaalo fara badanaa gurigan ku socda, laakiin aabahay arrintaas muusan aamini jirin. wareega dhaafa maandhocnimada, yaa idin yiri gurigan balaya ku jirto. adi si waqtiga u socoto maalimaha ka mid ah wax walba isbedeleen. hooyaday aabahay waxay aadeen magaalada, guriga aniga iga dhaqaaqeen. saasay tahay aniga saa TV u daawanaa waa ku caajisay. markii dambena taleefankii qadkaan galay, anigoo Facebook isaga jira hurdadii ila carartay. kadib aada u dhidi maxaa waa maandhocnimada. markaan soo kaca waxaa arkaa nin xun oo timo jaalo leh oo qori xun wato. maandhoc haddii timaa dhuxusha leh uu ku dilaya, intay iga geli doonta anigana cabsi ma dhaad, indhihiisa xataa lama arkin cadda. aniga saa u lahaa ninkan wuu ku dilayaa. sidoo kale wuxuu watay qori jabsan, waxaa isiri muxuu kaa qaadi karaa waxaan xunka timaa jaalaala. markii dambe qof oo ka tirsan asxaabteena mindishoob uu sii wuu dilay macnaha. anigana saa u cabsana ilaa amarkiisa. markii dambe oo iska dhaqaaqay, ma aqaan waxa loo soo sheegay. daaqadan ka fiiriyay, daaqadii markaa furo dabeel. saasay tahay aniga daaqadii aan kasoo booday. kadib waxaa u imaaday dariskeena, wax walba oo ka dhaadhiciyey dhibaatadii qabsatay. markaasay yiraahdeen waan ku caawinaa, ma iska dhaaf, hadda ninkii waa orday. maalinta waxay ka dambeysay meeshan waan kasoo guurnay, laakiin aabahay ilaa maantadan wuu aamin lahay. wuxuu u maleeyaa malawaal inaan ka hadlayo, laakiin hooyaday way aaminsan tahay. qofka kaliya oo fahma waa hooyaday. saasay tahay aniga waxaa lay keenay xarun, meeshii cabaar laygu daaweynayay. adi 3 sano kadib arrintii way soo laabatay oo dadkii dhanaa ka hadlayay. waxaa dhacday in habeenada ka mid ah guriga aan kasoo guurnay famil cusub ay soo degaan, ay usoo guuraan. kadib ninkii xumaa timaha jaalaha lahaa inta uu imaaday uu soo weeraray familkan. waxayna ahaayeen hooyo aabe 2 caruura. marka odaygii meeshii uu ku dhagay, macnaha shoog uu qaaday, laakiin islaanta caruurtii la soo orday. ninkiina meesha soo u taagnaa, ma aqaan ma lagu dila miyaa ma ogi. subaxi dambe meedkiisa laga helay guriga dhexdiisa. inta badan aabahay ima rumaysan jirin, markii dambe uu i aaminay. saasay tahay wuxuu isiri habeenkaas haddaana soo ordi lahayn daaqad kasoo boodi lahayn, ninka muxuu igu sameyn lahaa. anigana meesha mar walba waa booqan jiray saa xaaladeeda uga warhaayo. ninkaana wuxuu ahaa nin xun oo dilaa, 12 qof uu dilay. xitaa ninkii washmaanka noo ahaa guriga noo ilaalinaya wuu dilay. waana qiso xanuun badan oo dhacday. asxaabi waan soo laabtay, 100 kun gaarsiiyay yaaqay, 60 kun xataa na gaarsiin la adeena. asxaabi muuqaalka like far badan noo saara si meelo far badan oo u gaaro. waana idin baryaa hadee 100 kun gaarsiiyay. waan soo laabtay. iid wanaagsan, Ramadaan Kariim.
assalaamu calaykum. sheekadan waxay dhacday 2016kii xilliga Christmaska ama ciida ay raahdo. anigana xilligaas waxaan jira 12 sano. waxaan isku diyaarinayna shopping inaan soo adeegano amoolka aadno under eid aan soo gadano. saasay taa hooyaday way la dagaashaneed. waxay igu tiri war cabdiyo waxyo timaa dhuxusha la meel ay raacaysa malaha. gabadha walaashay wadatay. anigana waxaa hooy sug se u tagaysin la'aantii waraamayga leexanaysa mise is dagaalena. hooyadii waxay igu tiri suxun baan ku dil waryahay. gabadha walaashay Sumaya la yiraahdo anigana Cabdi. bis indha isku gubna anigii hooyaday. kadib waxaan ka dafay boorsadii wadatay way iga ceshad war socod saaxo maandhaco dhale. aniga run ahaantii aad baa u hanaaqay. qolka isku soo xiray. soo noqodkii waxaan dareemay gaari guuxiisa. ileen hooyaday gabadha walaashay way baxeen. daaqadii aan ka fiiriyey. sidoo kale guriga cidlaan ku noqda aada u hanaaqay. isla markaa waxaan bilaabay inaan meesha ku maxay meesha iga dhaqaaqeen guriga cidlada maan joogi karaa. aniga hanaaq maa dhahda wixii buuga meesha saarneed waa soo tuuray anigoo fikirsan oo isla maxaa samayn doontaa. markii dambe daaqada aan ka fiiriyey weli waxaan dareemay marka albaabkeena inuu aada u furan yahay. sidoo kale tuugadan waan ka cabsanayay. isu maaweelinaya sariirteeda iska aaday anigoo sariirteeda ku dul fikiraya fikradda igu soo dhacda marka. sidoo kale shanqaraa guriga ka dareemayay kaba lagu dul socdo. habeer kadib waxaan dareemay albaabka in jaq laga siinayo. markaasaa waxaa isiri talooyaa waa albaabka wax kugu soo qaraacayo ma tuug baa mise waa qof kale. kadib waa fikiray waxaa isiri hooyada ay gabadha walaashay amay tahay. maxaa laakiin albaabka saan waxay u yeelayaan furo wayba haystaanbo. go-aan waxaan ku gaaray marka inaan taleefon aan waco. hooyaday waxaan ku yiri hooyo seeta xaalad ka waran maxaa u soo laaban weydeen idinka miyaa waxa albaabka taagan oo idhibay. war maalanta maandhaco timaa dhuxusha leh war moolkan joognaa anigii gabadha walaasha. hooyo makaa dhaba haa. sidoo kale madaxa aadayu yar wareerayo cabaara meesha ku yara daahena la soco. aniga isla markii waa naxay sababtoo ah waxaa isiri tuuga guriga kuu soo galay. hooyada iyo walaasha haddii uu moolka joogaan intaya soo galay tuuga le soo gal. isla markii aniga argagaxa igu furmay waxaan sameeyay garan waay sariirteeda kama dulkicin. waayo haddaa banaanka u baxo ninkan wuu isoo weeraraa. ninkan albaabka jiq uu ku haayay. aniga naxdin ma dhahda waxaa sameeyo agaran waay. go-aan haddana waxaan ku gaaray inaan taleefon kale aan wacdo waayo ciil zaa'id ay ahaayay. aniga saaxiibtay Leylaan wacday. markaas waxaan ku yiri saaxiibay ima bal meeshaan cidlaan ku dareema war maalanta aan Australia jira adigana India joogtaa san kuugu imaadaa dee walaalo. midda kale maxaa dhacay maxaa u walwalsanta maxaa u weynaysa maandhaco timaa dhuxusha leh war waxay sheegnayo namaaniga saasale okay dhimalaha qeyran ku rajeyna. waxaa isla saaxiibteena ku caawina aniga cidlo waxaan sameeyay garan waa iska oynaa wah markii dambe waxaa isiri nin weyn aad tahay is adkeynaya oo halbo dhaxayo ilaahay tala saaro. bis waxaan go-aan ku gaaray marka albaabkii inaan furo. horta intaan furin ka hor duleelkan ka fiiriyay wah waxaa dareemay nin waayeelo oo timo oo raamo leh inuu yahay. albaabkii uu igu bilaabo inuu igu soo riixi ilaan waa furay war ha igu jibin. aniga xanuunka dareemaya ee dhididka iga socday hanaaq maa dhahda waxaa sameeyana waa garan waay. run ahaanta ninkan albaabka wuu iisoo gali rabaa maxaa uga furay waxaan. ilaa amarkiis markii dambe waa ku xoog badiyey ninkii albaabkiina waan ku celiyey. saasay tahay aniga qaladaan sameeyey oo ninkana albaabka ka furay waayo way dhaawici karaa. isla markii albaabkii qab aan ku siiyey waana xirtay alxamdulilah. iga tag dhamaan dhacaan way dil rabay. saacadda markaan fiiriyo ilaan waa xilli dambo. saacaduna waxay ku beegneed ku dhawaad adii dhowr iyo 10 saacadood adii aan iska iraahdo ilaa 9 saac oo habeenimo. aniga naxdin ma dhahda. aniga saa u lahaa ninkan xagu ka baxay ilaa markiis daaqadii aan fiiriyay haddana waxbana kumaan arkin. albaabkiina inuu xiran yahay dareemay albaabkii banaanka. adii dhowr saacadood kadib hooyaday soo wacday
oo farxad waa hooy seetay seetiin xaaladeen ka warama ruwaroona albaabka naga fur waan dhaco dhalayaa ku yiri ganjeelka naga xir hooy aniga ma xirinaya xiraade bis albaabka aan fur laanahay soo deg wariya kaal naga fur albaabka anigana aad u cabsanaa waxaan ku iri kama fura albaabka inaa la dilo maarta war soo deg wariya bis waxaaba dareemo qolka hoose in lagu jiro isla markii hoose u soo degay aniga cabsida igu jirta le waxaa islaa ninka hal mar ama ku qabtaa saasay taa xoogga u soo orday xitaa fadhiga xooggan ku maray sababtoo waxaa islahaa mar uu ninkan dhab uu ku siinayaa albaabkii xoog inta u furay fut banaankan ku dhahay hooyo saytiin fiicantiin warmaan dhacay meeqa saacan ku sugeen maxaa kaa qaldan waryahay hooyo raal noqo mashquul aan noqday bis gudihii soo galeen maalintaa waxay ka dambeysay hooyaday waxbana lama wadaagin waayo waxaa isiri arrintan haddaa u sheegta kuma aaminayaan waana qiso xanuun badan oo igu dhacda asxaabi like saar waana ku mahadsantiin daawashadiina like fara badan noo saara subscribe saara 100 kuna gaarsiiya ilaa ninkii sirta hoosteeda uu igu jiro waryahay maaniga isku keewaalaysa meeshaasaa laygu cunay shaasa igu dhamaatay bye asxaabi